ما يقول لك جوجي انت جوك قلبي قوراي صباح قول مدلي ابو كل ميت كل انت ميا كل قفك وكل انت ميا ميت كل لكن غرب انت بيقول كاسو حقوق صدع حقوق صدع اي والله waayahay halkan ayuu hoobiyaha uu ku soo dhacay daawadayaal gurigan waxa ku dhintay nin dhalinyaro oo la sheegay in markaas masjid uu ka soo baxay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un waxaana la sheegay in qolkiisa uu jiifay ma qolkan uu ahaa waa kana qolkan ayuu ku soo dhacay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un سيتا ولا حافظة دين تامية بل ولا وكتعسيننا جريدة نعضي هل كان قفوا كل تامية قفوا كل انت ولا كلنا يرى كل انت ولا كان الله نحرسته الله نحرسته محل أورنجري عبد العزيز محمد حسن قل كانوا دقنا سيرتنا وجيفي هي وحنا سكسر ما وحنا ببنا قرال واي يقدر عليه حجابي وقعد مر أصلاً والله مش ذكر والله أنا كنت ما نحسمه قف كدارنا هذا مكورة مكرنا يا رب إلهي ونحس مركب وحافلين رؤية وحملها ما ويل هذا ده يرد صباح له مستقبل ما يرى وحنا برني والحقيقة بودم يد تركي واحد برشوا سعينا دوسي السنة كانت كب حكم ده ومستقبل هيك سنة إلهي ونحرس كانوا وحوها ميت كم إذا دتك حافظة ولبا إسقرني ويل كدنت إلهي ونحرسته sida aad u jeedaan saqafka kore qolka ayuu hoobiyuhu ka soo galay burbur laxaal ayuuna geystay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un ilaahay u naxariisto waa xaalad musiibo ah waana wax markasta ummadda Soomaaliyeed ku soo laalaabtay ilaahay naga saaro arintan ayaa waxay tahay arin aad argagax u ah إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون سريرتان أيو جيفي ويلكو مركز أيا ليري أيو مساجد كصوبحي walaal bal soo dhawow wiilka Allah u naxariisto waa ka tacsiyeynaa sida ay wax u dhaceen walaal walaal horta inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un masiibo aan la filinayna meeshan ka dhacday waxa ku geeriyooday wiil abtigay dhalay ku geeriyooday Abdi Casiis Maxamed Xasan wiilkaas ku geeriyooday أي مركب العبد العزيز شخصية إلهي أو نحريس تقف عن كيبو عبد العزيز والله عنو دليرة أو دليرة هاد صبح سوءها أو دادي سديد تون إلى 20 ودحيدوها وأن إسكافر فرن سوشيال إسكاها أو دتك حافظ كلي وأرك كرتا سيد اللي إسكو صبح وأن إسكافر فرن بشاشوها مركا وحنا لو شيء وحبرشة تركيا أو السعودية أو مستقبل وجهك سنة تاس رجدي سوءها رجدي سوءها لكن وقتي سأنت كوي كاسو والدتي سويدسي ما هويدي سوي joogtaa aabana mid xaqiisu jira marka aniga walaalkay waay abtigay yaa dhalay jaamacada dhimay jaamacada waxbarasho jaamacada Turkiga u socday waayahay runtii waa xaalad aad u qalbi jab ah waxaa la sheegay Abdi Casiis Allah u naxariistay inuu ahaa wiil dhalinyaro ah oo waxbarashada dhameeyay isla markaana hadda waxbarasho wadanka Turkiga u socday laakiin ajashiisa tiisa ayaa halkan ku ekeyd waa musiibo waa maalin kasta dhalinyaradii oo dhimanaysa marka inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un arin aad u xanuun badan oo murugo iyo tiraanyo badan dhiigiisii ayaa halkaas ku qubtay sida aad u jeedaan meeshii uu seexanayay waalidiintiisa waxaana loo sheegay inay aad u tiraayaysan yihiin oo hooyadiis hadda xitaa hadalka ay kari laadahay xaaladda ayaa aad u adag bal soo dhow adeer bal soo dhow bal Allah u naxariisto Abdi Casiis iyo macalinka dugsiga miyaa soo dhow bal
kani waa macallinkii dugsiga wiilka dhintay allah u naxariistay bal cabdicasiis ardayga bal xaaladiisa iyo مصيبان إلى رجعنا مصيبان ولقينا أرجعنا دعدي وإلهي مهدي سواي أمرك إلى أسود ده ورقة كل عي ساسك وغيره وأساس مرك cabdicasiis macallin dugsi baad u ahayd kulli معلك أدرك اسمه xilliga iskuulkiin dambeysay iyo xaalad hadda ولي dhalinyaro baari ah wahay oo aad u jecel oo asuna baari ah oo ilmaha u fiican oo ah quraanka ku fiican oo ah markii amarkan iska dhacay waa amar ilaahay xaafadda yaa kaloo waxa ay hoobiyaashan ay waxyeeleeyeen nacaasa waxa ay sheegay 50 xageeda waa anagu ma tagin laakiin xaafadiina waa inta inta waa daawadayaal sida aad u jeedaan waxaan hadda aan si fiican qaba kamarada hadda aan ka soo dhaxalaya qolka Allah u naxariistay cabdicasiis uu deganaa cabdicasiis waxa la sheegay inuu ahaa nin dhalinyaro ah oo waxbarashada dugsiga sare dhameeyay waxbarasho hadda u socday jaamacad ah oo wadanka Turkiga nin afgaaban oo mustaqbal runtii hiigsanaya laakiin maanta tiisi ay halkan ku ekeyd waxaa la sheegay in xilligaas uu masjid ka soo laabtay wuuna soomanaa oo inuu yar nasto uu halkan u yimid oo qolkiisa u soo galay laakiin hoobiyuhu uu kolley qolka uu ugu soo galay marka arrintan ayaa korkaas haddii uu ilkaas qabo halkaas buu ka soo galay sida aad u jeedaan waxaanan dareemaynaa ama aan arki karnaa in uu aad u xoog badnaa oo madfacaasi uu ahaa madfacaad u weyn oo qolka oo dhan waxyeeleeyay marka meelo kala duwan ayay ku dhaceen madaafiicdu sida madaxtooyada nawaaxigeeda wasaaradii hore ee caafimaadka ee u dhow taalada Darjirka Daasoon meelahaas oo dhanna waan booqan doonaa bal waxaan isku daynaa hadda inaan wareysano dadka kale ee ehelka la ahaa cabdicasiis maanta masiibo wiilkii waayahay waxaa kaloo la sheegayaa in nawaaxigan laba meyd ah ay yaalaan oo lagu soo arkay waa maalin soon ah oo dad iska soomanaa runtii argagax iyo tiiraanyo iyo arrin culayskeeda iyo naxdinteeda leh ee lagu beeray inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun guriga saas ayuu u waxyeeleeyay meeshaas ayuu qolka uu ka soo galay إنا لله وإنا إليه راجعون halkaas ayuu ka soo galay oobiyo السلام عليكم maamo waa ku tacsiinina Allah u naxariisto wiilkaaga waa arin aad u xanuun badan maalin soon ah waxyaabaha dhacayna kamid tahay Ilaahay u naxariisto Ilaahay qalbiga ku qaboojiyo balse ay tacsida iyo murugada kula qaybsadaan dad Soomaaliyeed oo dal iyo dibad jooga hadda si toos ah aan ugu gudbinayna xaaladan waxaan jeclaan lahayn bal hal mar adiga dhaaftana waa jeclaan lahaay qiimadii maamo naxariis Allah siiyo iga dhaaf cabdicasiis bal shakhsiyadiisa iyo daadiisa iyo inaan loo sheekaysin waayahay maamada waa tiiraayaysan tahay ya maamada waa tanaa waa u soo laabanaynaa
cabdicasiis hooyadiis ayay ahayd marka runtii xanuunka iyo murugada ay qalbiga ka dareemayso ayay la kari weysay hadalka ay la kari weysay xaafadoo dhan ayaa aad loo tiiraaysanaya xaafadan waxay ka tirsantaa warta nabadda soo warta nabadda laanta koowaad jenaraal daa'uud ayay xaafadan ka tirsan tahay dadka xaafadoo dhan ayaana aad moodaa in ay aad u tiiraaysan yihiin oo ay dareemayaan murugada iyo xaaladda meeshan ka jirta inaa lilaahi wa inaa ilaihi raajicuun meelo kala duwan ayay hoobiyaasha ku soo dhaceen oo nawaaxiga madaxtooyada iyo sidoo kale wasaaraddii hore ee caafimaadka oo iyaduna boondheere ka tirsan nawaaxiga taalada daljirka daahsoon haye